waliba geeka magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya si rasmi ah ku furmay shirkeen dhahay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo haan maamul goboleedyada waliba shirka geeka si rasmi ah u furay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ana xaquuqib galeen madaxda maamul goboleedyada dalka ku jiraan shirkan oo lunku aransaday amuro ammaanka deegaanada dawladda Soomaaliya iyo mayba uu ka qabsoomay madaxtooyada Villa Soomaaliya waliba qeyb ku hayna madaxda meelaha ku qeyb galay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Khayre iyo madaxweynaha maamulka dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Puntland Jubbaland Galmudug iyo Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir waan aduq magaalada Muqdisho Engineer Iriso iyo taliyaasha ciidanka qaybasha Shalduban shirkan oo geeka laga qabday magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya iyo wali wal qodobe oo iska rahan madaxda dawlad goboleedyada iyo haan federaalkaba haan kubana iyo ana la filahay intii si khayr u ka dhamaada shirkaasay Cabdirasaaq Laki TV-ga dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Muqdisho.